wafdigan uu hogaaminayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre kana koobnaa wasiiro ka tirsan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta u ambabaxay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa si ay uga qayb galaan ciyaarta xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya oo gaaray finalka tartanka da'yarta bariga iyo sidoo kale bartamaha Afrika oo ay biri la ciyaari doonaan wadanka South Sudan. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay oo bogaadiyay xulka Soomaaliya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta u dhaqdhaqaaqda isboortiga iyo xildhibaano. insha Allah hadda sabteeda la ciyaariyo oo biri ah haddana la soo noqonaya Soomaalida waxaan u yaqaanaan in la yiraaho bal soo badiyay waxa mar hadii finaal qofku istaago waa u badis ciyaarta dambana waxa laga yaabaa in muxuu ahaa ilaa Algeria la aado marka already waa u soo baxay Algeria marka dadku waxaan leenahay maalinta la iimaanayo looma kala harayo in loo soo dhaweeyo dhalinyaradaas taas oo aad iyo aad aanu soo dhaweynaa wixii kalena madaxda kale joogta ayaa ku daraysa waxaan balan qaadeynaa haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka iyo xukuumadaba dowladda Soomaaliya in dhalinyarada aan garab istaagayno oo aanu ka qayb qaadanayno oo ayna tagi doono garoonka kubadda lagu ciyaarayo ee finaalka ah taasna waan ka dhabeynay dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxaa tihiin ubadka maanta waxaa tihiin hoggaanka dalka runtii waxaa tihiin horumarka wadankan uu ku faani karo iyo talaabadaha lagu guuleysan karo wadankayaga iyo dalkayaga runtii dalkan annaga ayaa leh qalbigaygana wuxuu jiraa garoonka waxaan rajaynayaa birito koobka oo halkaan aan garoonka idinkaga hor imaado wasiirka iyo dhammaan inta hadda socoto wasiiradii dowlad goboleedyada waxay ag fadhiyo waa koonfur galbeed xildhibaanadii koonfur galbeed oo meel walba way ka yimaadeen wasiirka Hirshabeelle waxay la tahay marka wasiirku uu garba badan yahay kaliyana waxay tusaale u noqon kartaa guusheena rajada ii muuqato waa inaan guuleysanay waa inaan koobka soo qaadnay waa in ay tahay garoonka marka la galayo dhalinyarada Soomaaliyeed calankaas buluuga waxaan kula dardaarmayaa ciyaar wanaag waxaan kula dardaarmayaa hooyo ummadda Soomaaliyeed magaceeda kor aad u qaadeen inaad koobka keento bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 14 Oktoobar 2022 waxaa sharaf noo ah farxad noo ah inuu wafdi uu hogaaminayo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha inaan ka mid nahay oo u socono dalka Ethiopia ciyaarihii dhalinyaradii 17 jirada ahaa guulaha ay soo gaareen ee haddana ay taagan tahay miro dhalkiisii ma tartankii 17 jirada finaalka inaan rabno inaan aadno anagoo dhiirigelin iyo garab istaag aan ugu socono dhalinyaradaasii maanta magaca Soomaaliyeed iyo sharaftii iyo 30 sano inaysan heerka maanta ay gaareen la wada gaarin ee sharaf u tahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waqtiga uu ku soo aaday iyo dhiirigelinta dhalinyaradaas ay muujiyeen dhanka kale wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre ayaa ka hadlay safarkooda wuxuuna dhankiisa bogaadiyay xulka qaranka Soomaaliya anigii wafdi balaaran oo ka kooban wasiiro xildhibaano guddoonka gobolka Banaadir sidoo kale khubaro sports bahda saxaafadda dhamaanteen waxaan ku wajahanahay ganacsato iyo marti sharaf kale waxaan ku wajahanahay sidaan uga qayb gali lahayn ama u garab istaagi lahayn dhalinyarada xulkeena qaranka ee 17 jirada natiijada fiican noo soo hoyay ama natiijada fiican inagu matalaan sidaan hore uga balan qaadaa waxay ahayd markay marayeen ciyaaraha kilib aan u duubay markay wareega afar dhamaadka u soo gudbayeen waxaan ku yiri haddaad final tagtaan insha Allah howl kastaan haayo waa idin kala soo qayb galaa taasa keenta maanta inaan anigi wafdigan balaaran oo ilaa iyo daafaha dunida loo kala imaanayo inaan idin kala soo qayb galno oo aan soo ajiibna waxa keentay natiijada quruxda badan iyo sidaad idinka balanta uga soo baxdeen balantii aan wada galnay haddaad final timaadaan waa idin imaanayna wafdi balaaran horan u soo kaxeyn doona balantii maadaama idinka xaqiin ka soo baxdeen aniguna maanta tan waxay inaan xaqii ka soo baxo saaseen ahayd sababtaan idinku soo idin kala soo qayb galin ciyaarta sida kale runtii aad waxaan ugu faraxsanahay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya ay gaarto ciyaaraha qaramada Afrika gurubyada qaramada Afrika ee u gudbaan taasina waxay ahayd waxay ku timid dadaal iyo isbahaysi ay iskaashanayeen xulkeen qaranka 17 jirada macallimiintooda
maamulka federationka kubadda Somali Football Federation oo Soomaaliya oo ayaguna ahaa kaalin lixaad leh ama ahaayeen door fiican ka qaateen dhammaantood waxaan uga mahadcelinaa sida quruxda badan ay noogu matalayeen haddaynu nahay ka xukuumad ahaan iyo wasiirka wasaaradana insha Allah hadda markaan idinkala soo qayb galnana markaad finalka soo qaadaan koobka waxaan rajaynaynaa insha Allah annagoo champion inaan ku soo laaban doono. Maxamed Ibrahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.